wadada burco oodweyne hargeysa iyo wadada ceelgaaba mayd madaxweynihii iyo beeshiisii baa bursatay waa mushkulad qaar ka mid ah uqaasha beesha habar jeclo maalnimadii shalay la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen madaxweynaha iyo beeshiisu inay sameeyeen sadabuursi taasoo ay sababaynayaan hadal uu ka jeediyey dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi oo uu ku sheegay in wadada ceelgaabo mayd iyo sidoo kale wadada hargeysa oodweyne ilaa burco u dhisayo taasoo marta deegaanada uu asagu ku abtirsado haddaba odayaashaasi oo la hadlay warbaahinta maalnimadii shalay hadaladooda waxaa ka mid ahaa maalin walbana hagaagi mayso Soomaalilaantuba hagaagi mayso ninkii la doortay waa adiga dusha waxa laga saaray waa dunida jeexeed in quruuri daba joogto oo doorataa tahay waxa hawshaadu meesha afka ku hayso iyo halka ku dhamaatay halka ka bilaabataba annagoo ah uqaashi habar jeclo jiif aqladii uqaashi oo dhan ayaa halka fadhiya dadkan waa dadkii ku codeeyay waa dadkii kursiga ku gaarsiiyay xaqsoor bay kaaga baahin inaad xaqsoorto oo mashaariicda soo gasha Soomaaliland aad dalka oo dhan wada gaarsiiso waxaanu haynaa mashaariicdii ay noqotay in dhinaca qura loo qaybiyo taasina waxay noqonaysaa calaamad haddana uqaasha waxaanu baaq dheer ku diraynaa oo madaxweyne kugu sheegaynaa oo kugu cadaynaynaa madaxweyne mashaariicda wixii aanu xaq u lahayn waynaanu helnaa mashaariicda wixii aanu xaq u lahayn inaanu helno oo aanu xaqeega helno oo dadka aad u xaq soorto ayaanu madaxweyne u baahnay waayo adaa madaxweynaha canaanan mayna anagu wasiiro iyo agaasimayaal iyo xusbi midna anagu waxba ka sheegmayno adigaa dalka madaxweyne u adigaa hadday wax xumaadaanna adigay kaa xumaadeen haddaad wax hagaajisayna aday kuu hagaageen dalku indho dheer buu wax ku eegayaa shacabku aad buu soo jeedaa waxaanu leenahay madaxweyne qaybi mashaariicda qaybi oo xaqsoor ku qaybi oo siday ahaan jirtay madaxweynayaashii hore ka horreeyay ku qaybin jireen madaxweyne ku qaybi wuxuu yiri nin quruuni daba joogto oo doorataa tahay dusha waxa laga saaray waa dunida jeexeede dacdur iyo nin liita oo dacba sarahaatan warka doqonta oo fiirsanina daadi hadalkeeda anigu wax kale hadalka waxaan ku darsanayaa madaxweyne ayaan xaajadaada cid kale tuurtuurin oo luminin ninkii la doortay waa adiga dusha waxa laga saaray waa dunida jeexeed in quruuri daba joogto oo doorataa tahay waxa hawshaadu meesha afka ku hayso iyo halka ku dhamaatay halka ka bilaabataba madaxweyne adeeg ku saarantay ka war hayo la soco gurigani waa gurigan aan jiraad ka qabanayno waa gurigii beelweynta habar jeclo uqaasha talada uqaashu ay ka soo bixi jirtay ilaa ceelgaabo ilaa berbera waa gobollo ilaa caynaba waa gobolladii halkii ay ka soo bixi jirtay go'aankooda ugu dambeeya beelweynta habar jeclo marka waxaan leenahay madaxweyne waa la qabnaa rayiga odayaasha hore soo jeediyeen waa la qabnaa mashaariicda garab martay gobolka Togdheer ee waliba khaas ahaan beelweynta habar jeclo garab martay ee wixii aad adigu madaxweyne dhagax dhigtay ee aad xogagaalka ka ahayd ee aad ku ololeynaysay ee biriishkaasi ka mid yahay biriishka balaase uu ka mid yahay ee airportku ka mid yahay inaad dhakhtar wanaagsan loo dhiso gobolka Togdheer uu ka mid yahay oo ka mid yahay wadooyinka odayaashu sheegeen berbera ka soo bilaabmay isku taagay halka ilays ilaa inta ugu dhaxaysa ay tahay meel dhaawaca oo burbursan oo u baahan in dib habeen yaro lagu sameeyo waxa kale oo taagan sida ay odayaashu sheegeen wadada tacabka badan la geliyay dadkii lahaa lacagtii inta iska bixiyeen iyagu cagafyada soo iibsadeen qorulugud iyo buuhood la gaadha wadaamago ka leexata yaduna waa qabiyo waa ku adogeyd adiyaguna ku ololeynaysay madaxweyne wax kale ku oran mayno mashaariicda 730 mashruuca waxa lagaaga baayay cadaalad u qaybisid cadaaladaasina
ku iman mayso sidan iminka madaxweyne waayo haddii ay 7 mashruuc meel qura ilaa khadiifad baynu ku wada fadhinaa way sognahay oo dinidu WhatsApp bay leedahay 7 mashruucba inay boos wada degaan oo aanay boosna dhinacna uga dhaqaaqin de madaxweyne taas waa cadaalad xumo adigana waxaanu ku leenahay adigana yaanay de kugu kicin dadkaaga iyo ummadaada yaanay kugu kicin beesha halkan kala hadlaysaa madaxweyne cadaalad bay kaaga baahan tahay beesha madaxweyne halkan kala hadlaysaa waa beeshii iyadoo xusbi xaakin leh oo kulmiye leh mar qura inta ceelfayn tagtay 160 digrii mar qura kala wareejisay waa beesha aad ku faantay 460 baa ku helay marka waa inaad baaqeeda maqashid waa tii buurta ka shaqeynaysay waxaanu ku leenahay madaxweyne waa beeshii iyadoo xusbi laakiin inta iskaga tagtay adiga ku dooratay ee 460 aqlabiyada had iyo jeer laga sheego telefoonada iyo miidiyaha waa tii ku gaarsiisay waxaanu jecelahay inaad baaqeeda maqashid waxaanu u hadlaynaa dadka aanu mas'uulka ka nahay iyo guud ahaanba reer Soomaaliland uma hadlayno habar jeclo kaliya laakiin waxaanu u hadlaynaa aan leenahay mudane madaxweyne dalka adiga oo madaxweynaha cod aqlabiyada baa lagu doortay dhammaan gobolada Soomaaliland waa laga doortay waxa laga baahan yahay mudane madaxweyne sidii lagu doortay inaad dadka aad ugu xaq soortaa loo baahan yahay waxaanu ka waraynaa in mashaariic badan oo horumareen dalka ay soo gashay wax dibadda inooga yimi iyo wax dawladdu fulinaysa mashaariicda sida aan warka ku hayno sidii cadaalada looma qaybin dhinac bay ka raran tahay galbeedka gobolka togdheer iyo galbeedka gobolka Muradisheeh ayay mashaariicdaasi ku jahaysan tahay dalka intiisii kalena lama xusin waxaanu leenahay annagoo aanu hadlayn beesha aanu ka soo jeednay ama shaloo qura aanu hadlayn oo u hadlayna cadaaladdu inay dadka wada deeqdo iyo Soomaaliland bay si maartay milgaa wax loogu qaybiyo waxaanu leenahay dalkaada u madaxweynaha si cadaalad wax ugu qaybi doonayna inaad si xaq ah oo ummadda wada gaadho ummadda u siman tahay ummadda Soomaaliland u siman tahay inaad u qaybiso waxay adigu ku anfacaysaa markaad xaq u qaybisaa adigana waa dantaada annagana waa dantayada oo ummaddu xaqa yuunbaa deeqa laakiin xaq darradu ma deeqdo madaxweyne waxaan ku leenahay mashaariicdaa la sheegay qabyooyin kale ee horreeyey way dee baahan yihiin oo sidii bay in wax laga qabtaa weeyi oo loo horraysiiyo kuwa qabyada horta la dhammeeyo kuwa cusub ha laga daba bilaabee waxaanu leenahay mashaariicda annagu hadalkayga waxa weeye si xaqa oo cadaaladda yaanu u doonaynaa cadaaladaasaanu doonaynaa mashaariicdaas waxa waa 7 mashruuc gobolka togdheer barigiisa waxba kama soo gaadhin baa la leeyahay waxaanu wariyaahe madaxweynuhu waxaan ma qaybinee ma guddi cibraantii baa qaybisay wax halkaa fadhfadhihi jirtay miyaa qaybisay war madaxweynuhu waxaa ma yeeli karee annagu sidaasaanu iminka isku xansanna guddi cibraantii baa qaybisay madaxweynuhu waxaan ma qaybin markaa madaxweyne annagu waxaanu codsanaynaa uun in aad xaq wax ku qaybiso waanu qatanayn xagee ka qatanaydeen haddii qolo waliba taa waa qatanayn dee waa mushkulad beri baanu qatanay dowladda waxba kumaanaan lahayn war waa lagu lahaayoo cid waliba sidaas umay dowladdii madaxweynihii yimaadaaba dadkunbuu wax u qaybin jiray dee haddii la yidhaaho madaxweynihii yimi beeshiisii baa bursatay dee waa mushkulad waana ceeb maalin walbana dee hagaagi mayso Soomaalilaantuba hagaagi mayso haddii la yidhaho madaxweynihii yimaadaaba beeshiisii baa bursatay beeshan waa beesha ku soo dooratay gurigan oo gurigii beelweynta habar jeclo ee xuqaasha ee shirku ku go'aamisay weeyaan markaa shirkii ceelfayn ka unkamay ama waxaan ku laga aasaasay waa gurigii laga doortay madaxweyne waxaan filayaa marka baaqayga ku soo gaadhay inaad beesha codsigeeda tixgelin doonto
waddooyinka iyo airboodka burco iyo dhakhtarka weynaa iyo biriishadaad ballan qaaday iyo waddadaas ku xidha halbowlaha bari oo dhan burco ilaa oog iyo ta qorlugud wadaamuga ka beedha ilaa buuhoodle iyo qorlugud iyo taa war cibraan ilaa degmada beledhiig inaad mashaariicdaa si cadaalada u qaybiso madaxweyne dee mashruuc walba haddii mashruuc laga daba keeno qabyo walba haddii mid cusub laga daba keenaa hawshu qabyuun bay noqotaa waxaan madaxweyne kaa codsanaynaa qabyooyinkii hore dhammaystir qabyooyinka waxaa ka mida biriishka balaasa iyo u kala baxa Oktoobar waxaa ka mida garoonkii weynaa ee burco ee caanka ahaa oo xidhan waxaa ka mida dee dhakhtarkii weynaa aad ku ballan qaatay ee burco waxaa ka mida waddada burco iyo ilaa ooga waxaa ka mida taa wadaamago iyo qoruul iyo buuhoodla'a waxaan ku leenahay madaxweyne tii war cibraan maraysay hawd qabanaysay beledhig ka baxsay madaxweyne hawshaas oo dhammi waa hawl kuu taal hawshaa dhammaystir waxaa marshuuc soo baxayna cadaalad madaxweyne ku qaybi dee dad baanu nahay soomaali oo dhaqanyaqaanahe awrka rereyga ah waxaa aqalka u haya bayda iyo caynka iyo dabageliska saddexdaa haddii laga saaro awrka aqalka waan ridaa oo ma sido madaxweyne haddii cadaalad waado dawladdu uunbaa dee dheeliyeysa burco oodweyne hargeysa corridor ana Cerigabo Main Road as well. labadan mashruuc These projects are waxay muhiim u yihiin national cohesion, isku xidhka qaranka regional commerce